الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفرية طبناد إيه كتاب كان حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. waxaan soo guurinaynaa halkan hadal uu yidhi sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah isagoo ka hadlaya gabdhaha jannada, dadka ahlu jannada ah iyo masaa'il ku tacalluqda almar-ah. wuxuu yidhi sheekh ibnu cuthaymiin, haweenku adduunku markii la geeriyooda kama bixi karaan xaalooyinkan soo socda, mid ka mida unbay ahaanayaan. haddaba wuxuu yidhi almar-a allatii maatat qabla an tatasawaj, haweeneyda waxaa laga hadlay dad ilaahay jannada u gartay. qofkaan dee jannadiisa gelin hadalkiisu meeshan ma yaallo, waa qof ilaahay jannada ugu talagalay. marka almar-a haweeneydii geeriyootay inta aynan guursanin, ileen jannada xadiis saxiixa wuxuu yahay wamaa fi ljannati aczabu. jannada imaam muslim baa soo sideedaba qof doob a ma jiro, jannada dadku kulli wada reer bay leeyihiin. marka hadday sidaas tahay, haweeneydii geeriyootay intayna guursanin xaggee odaygu uga imanayaayoo laga siinayaa? fa haadihi yusawijuha allahu fi ljanna, ilaahay baa u guurinaya buuri jannada min rajulin min ahli dunya, nin oo dadkii ahlu adduunka ahaabaa loo guurinayaa. alla ayaa jannada ugu guurin, wax ay indheheedu ku qabowsadaan baana loo guurin. almar-a allatii maatat, haweeneyda kale oo geeriyootay iyada oo la furay, wahiya mutallaqa, waa la furay. kadalika allahu yusawijuha fi ljanna, sidaas oo kale ayuu alle wuxuu u guurin zawj oo min ahli dunya, dadkii adduunka ka yimid ah oo jannada yimid ayaa iyadana loo guurin. almar-a allatii lam yadkhul zawjuha aljanna, waxaa jira haweeney jannada timid oo soo gashay, laakiin ninkeedii jannada ma imanin. ninkeedii jannada ilaahay uma qadarin, ma soo gelin, laakiin iyadii way gashay. xaggee looga guur? kadalika sidaasoo kale buu allahu yusawijuha fi ljanna, iyadana jannada ayaa loo guurin oo alla subxaanahu watacaala halkaasa loogu guurin. fa hunaaka fi ljanna waxaa jira man lam yatasawaju min alrijaal, ragaan soo guursanin adduunka, marka kuwaasa iyagana loo guurinayaa. almar-a allatii maatat bacda zawaajiha, haweeney dhimatay intii ay guursatay kadib, fahiya fi ljanna, haweeneyda dhimatay oo nin lahayd iyadu waxaa la yidhi fi ljannati lizawjiha alladii maatat canhu, ninkeedii ay ka dhimatay ayaa nin u noqonaya haddii uu jannada yimaado in sha allahu tacaala. almar-a allatii maata canha zawjuha, haweeney ninkeedii ka dhintay oo fa baqiyat bacdahu, iyadaa joogtay, lam tatasawaj, ma aynan guursanin, xataa maatat, ilaa ay ka dhimato. ninkeedii baa horey u dhintay, iyadiina may guursanin ilaa ay ka geeriyooto. fa hiya zawjatuhu, waa zawjadiisii fi ljanna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala, isaga ayay zawjo u noqonaysaa. almar-a allatii maata canha zawjuha, haweeney kale oo ninkeedu uu ka dhintay, fatasawajat bacdahu, guursatay gadaashii, fa inahaa takuunu liaakhiri aswaajihaa, ayay noqonaysaa haweeney maata canha zawj, ninkeedii baa ka dhintay, nin kale ayaa guursaday. fa inahaa takuunu, bimacnaa labadoodiiba jannaday yimaadeen weye su-aashu. labadii ninba hadday jannada yimaadaan, keebay zawjo u noqon? kii dambay u noqon biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waana loo deliishadaa xadiis sheekh alalbani saxiixiyey, almar-atu liaakhiri aswaajiha, haweeneydu raggee soo guursaday kii u dambeeyey baa nin u noqon in sha allahu tacaala. xudayfa binu yamaan baa isaguna xaaskiisa wuxuu ku oran jiray, wuxuu ihi in shi'ta, haddaad doonto, an takuunii zawjati fi ljanna, inaad xaaskayga jannada noqoto,
falaa tatazawaji bacdii buu ha guursanin gadaashay fa ina almar'ata fi ljannati liaakhiri aswaajiha fi dunya. haweeneydu waxay uun jannada u noqonaya zawj kii ugu dambeeyey biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. falidaalika sidaasa waxaa la yidhahdaa ilaahay uga xarimay aswaajtii nabiga ummuhaadkii hooyooyinkeen inay guursadaan gadaashi. maxaa jira waxay noqonayaan aswaajtii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam. haddii la yidhaahdo baa la yidhaha janaa-isada markii la ducaynayo waxaa ka mid ah wa abdilhaa khayran min zawjiha, yacni ilaah ugu bedel xaaskan zawjkeedii mid ka fiican. waayo iyada oo mutasawijo ahayd ayaa waxaa laleeyahay alla ugu bedel. sidee baad marka ducada haddii su-aasha alla keeno waxa weeyaan jawaabtu allah subxaanahu watacala ibnu cuthaymiin baa ka jawaabaya in kaanat hayra mutasawija, haddii aynan nin lahayn wuxuu yihi ujeedadu waa khayran min zawjiha almuqadari lahaa, zawjkii adduunka alle ugu qadari lahaa ku ka fiican allahu sii waana la siinayaa. haddii ay nin lahaydna ujeedadu waxaa weye bikownihi khayran min zawjiha, yacni sifaadkii adduunyada uu ku lahaa sifaad ka fiican ayuu alla siinayaa subxaana wa tacaala. marka laba jeeraba ducadu waa wax fiican in loogu duceeyo, oo haddii uu ninkeedii ka geeriyoodo la yidhaahdo wa abdilhaa khayran min zawji, ducadii dheereed lagu daro ilaahay ou zawjkeedii mid ka khayr badan. xitaa isagii hadduu guursado aakharo sifaadkii iyo tilmaamihii uu adduunka ku lahaa ee xumxumaay oo dhan baa laga bedelay oo kuwa fiican baa la siin insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayra iyo dunya waalaakhira ba haynagu arsaaqo. wallahu aclam.